imaam masjid oo maalin waliba u dabaasha si uu uga addimo masjidkan biyaha dhexdooda ku yaala. Si aan ugu dagalno muuqaalkan walaal waxaanu kaa codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim cali aadan mahadsanid badan. imaamkan da'da yar ayaa waxa uu maalin waliba ku dabaashaa biyahan badan ee kala xiray masjidka iyo xaafadaha magaaladan ku taala Sadkhira oo ka mid ah dalka Bangladesh. roobab xoogan oo daadad watay ayaa waxay ku soo rogmadeen magaaladani waxaana ku baaba'ay guryo iyo goobo ganacsi, balse masjidkan oo ku yaala hadda biyaha dhexdooda ayaa ka badbaaday daadadka, taasi oo la yaab ku noqotay dadka deegaanka, iyagoo mucjiso ku tilmaamay in guryo iyo goobo ganacsi ay daadadka roobabkaasi watay ku baaba'een amaba ku burbureen, isla markaana uu masjidku ka badbaaday daadadkaasi iyo biyaha roobkaba. imaamkan oo ka mid ahaa culimada masjidka ayaa waxa uu soo fiiriyey masaajidka, waxa uuna arkay in aan waxba iska bedelin masjidka iyo gudihiisaba, isagoo markaasi go'aansaday in uu 5 salaadoodba ka addimo masjidka, wax kastaba haba ku qaadatee. hadda imaamkan ayaa waxa uu inta badan masjidka ku tagaa dabaal 5 xilli ee salaadaha, inkastoo uu sheegay in uu mararka qaar uu helo doomo caawiya marka uu addimo, isla markaana uu salaada ku tukado masjidka uu dib dabaal mar kale ugu noqdo xaafadiisa iyo dhinaca kale ee magaalada. duruufta ugu weyn ee ku kaliftay ayuu ku sheegay in deegaanka masjidka dhinaca uu ku yaalo aysan markaasi masaajido kale ku oolin, isla markaana aan addimo masaajido kale oo ka addima xaafadaha laga maqlaynin, oo baahi weyn dadku ay markaasi u qabaan aadaanka salaadaha. muddo ku dhow bil ayuuna imaamkan arrintan wadaa, waxaana aada ugu taageeray dadka deegaanka. muuqaalo laga soo duubay ayaana waxa ay muddooyinkii dambe qabsadeen baraha bulshada. imaamkan da'da yar ayaana waxa uu si maalinle ah dhinaca biyaha uga soo galaa dabaal, isagoo markaasi ay waqti ku qaadato in uu gaaro masjidka. waxyaabaha la yaab kale isla markaana dadku ay inta badan la yaabeen ayaa waxay noqotay in xitaa salaada subax oo ah xilli aroor ah uu inta badan aado masjidka isagoo dabaal ku galaya biyaha, sidoo kalena masjidka tegaya addimayana, kadibna dib ugu soo laabanaya xaafadiisa isagoo soo tukaday, taasi oo aysan inta badan dadku ku dhiiran karin